السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مركز عشرة دين كتابة تنمي maanta waxaa la arkaynaa qaybta marka conditional applying stylish marka in loo sii qaab marka shuruud xirida so control structure okay waxaa sameynaynaa marka in tusaale kale haddaa u baahanta inaad dark theme iyo light theme marka la isticmaasho in shuruuda aad ku xirto tusaale haddii themeka uu yahay dark in marka background iyo waxyaalahaas markaasi dark theme laga dhido haddii noqoto marka light in marka background iyo qoraalka marka light theme laga dhido haddee markaasi waxyaalahaas dhan aysan noqonna marka in sikal laga dhido marka saa ujeed marka waxaa la isticmaali doonaa if else statementii caadiga javascript so marka add if aan ligi doonaa kadib else aa la isticmaali doonaa waxyaalaha markaas meesha soo kordhaa oo keliya waxaa weeyaan meesha if laga dhigi lahaa in marka add if laga dhigi doono sidoo kale meesha bracketka laga qori lahaa oo if markii loo bracketka la qori lahaa so conditionka si loogu dhex qoro bilaa bracket weeyaan intaas keliya waxaa weeyaan waa farqiga u dhexeeyo markii laga hadlayo js iyo qaybta marka isla fiirino marka qaabka u samayn karno let's see marka inta imaanayna waxaan dhihi doonaa marka theme marka la qoraynaa so it will be a variable so waxaa dhehna marka theme so waxaa dhehna marka dad waa hadda tusaale kale waxaa dhehna dad so waa qaadan doonaa qaabka loo badbedelo iyadoo button xitaa la isticmaalayo balse aad dartaan just conditionkaan rabaa marka hore inaan isla fahno so hadda waxaa qorina qaybta marka variableka waxaa qorina meesha arabno inaan conditionka aad ku sameyno marka waxaa dhehna body so body markaan dhaho waxaa qori doonaa conditionkii at if aa dhehna at if markaan dhahno waxaa fiirinaynaa themeka meesha noo yaalo ama themeka marka activeka ah dark miya mise light waa marka waxaa dhehna haddii theme calaamada soo celinaysa mar walba haddii themeka uu la mid noqdo equal hadduu la mid noqdo dark hadduu la mid noqdo micnaheedu waxay tahay hadda themeka dark waaye waxaa samayn karnaa inaa background madow ka dhigno qoraalkan caddaan aan ka dhigno so hadda bracketkaana furaya waxaa dhihi doonaa marka background waxaa ka dhigtaa madow okay let's see marka 00 waxaa kaloo dhehnaa qoraalkan waxaa ka dhigtaa caddaan okay let's see marka hadda aa fiirino waxaa arkanaa websitekan almost intii oo kale la siiyey laakiin kan maanta dhan ma haysan doono waxay ku xirantaa shuruudan inay true noqoto amin waxa meeshan la dhahayo inay sax noqoto haddii tusaale kale meeshan dag uu isku bedelo light so light uu isku bedelay almost styleki ma qaadanayo so saa ujeed marka conditional styling waaye stylekaas waxay ku xiri kartaa shuruudaad ku xiri kartaa adoo javascript isticmaalaya camal dabcan saa ujeeda if statement weeyaan so waxaa kaloo dhigi kartaa haddii la waayo kabaranaya light uu noqon karaa marka haddii wax dhan la waayo iyo haddii markaasi wax kale oo light loo yaqaan haddii la helay kale ee kale tahay condition kale so condition kale saa u samaysa else if aa isticmaalaysaa else if haddii kale uu themeka uu wax kale noqdo wuxuu noqon karaa marka wax kale aa udnaha waa adirtaan waxaa dhehna wuxuu kaloo noqon karaa themeka uu la mid noqdo light uu la mid noqon karaa so light markuu la mid noqdo waxaa rabnaa stylekan aan naqaana inaan siina haddana waxaa dhehnaa marka background iyana waxaa siisanaynaa caddaan halka colorkan aa siisanayna dabcan madow aa siisanayna ama color kaloo 3 ayaa siisan kartaa oo asina madow u dhow aad u qurux badan okay let's see marka hadda waa kana light white colorkan la siiyey okay hadda colorkan lama siin doono colorka waxaan doonaysaa u fahantaan buluuga ka dhigi doonaa in la siiyey in kale because madow keliya siinay so almost madow uu watay mujida hadda waa la siiyey qoraalada waa ujeedaan buluug waay laakiin haddii meeshan light laga qaado oo darkna laga qaado another thing haddii laga dhido another wax kale laga dhido saa ujeed yani wax dhan ma qaadanayo waxna ma dhacayo so haddii kale marka else isticmaali kartaa haddii markaas waxa dhan la siinin cad adhesa mar walbo haddii marka waxa dhan aa la siinin oo conditionka uusan ahayn dark ama conditionka uusan ahayn light haddii kale marka saan ii sameyn marka saarita sheegi kartaa waxay ku xirtaa marka waxaa u baahan tahay ku xirtaa dabcan okay haddii kale marka waxaa iska dhigi karnaa maybe qaybta waxaan dhehnaa madow caadi ka dhig so just like that so wixii aa u baahan tahana sheegaysaa dabcan so tusaaleyn waa idin siinaa oo hal mar madow waxaa ka dhigi doonaa colorkan kale so waa fiirinayna marka saa ujeed colorkan laga dhidaa mujeda else haddii noqoto colorkan kale laga dhidaa waxay ku xirantaa marka waxaa markaas aa u baahan tahay so marka hadda aa fiirino dark themekeena iyo light themekeena ma noo shaqeynaa conditionkeena dark aa ka dhigi doonaa saa ujeed websitekeena waa dark theme just like that so basic waa already marka waxaa dhehnaa qaybta lightkan waa qoreyna waxaa dhehnaa marka light so marka qaabkaas u isticmaalaysaa waxa loo yaqaano conditional stylingka waxaana markaa isticmaalaysaa if statement aa isticmaalaysaa adwaalid ma halkaas ayay ku sameynaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu